اوكي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم marka hore waxa weeye rabadaan kariim ilaahay waa kuu mahad ilaahay raxmadda inoo shubay maanta waxaan jecelahay inaan saddex qodob ka hadlo mid waxa weeye aafadan dhacday oon leenahay si loo gurban lahaa adduunka loo sheegi lahaa mid waxa weeye arrintii ceelaf weyn mid waxa weeye arrin tukaraq marka horeysa waxa weeye waxaan leeyahay shacbiga reer Somaliland meel kastoo joogaanba iyo hay-adaha wadaniga ah iyo kuwa internationalkaba iyo adduunkaba waxaan leeyahay gurmad buuxa ha loo soo diro dhulka ay ku dhacday aafayntu waxaa dhacday in xoolihii beerihii oo dhan ay baaba'een horta marka waxaa inoo habboon marka hore in dadka la badbaadiyo oo maanta raashin u baahan yihiin raashinkaasna aanay dhulka badankooda gaadheen lug lagu gaadheen waxaan dayaarad ahayn in lasoo gurmado oo dowladdu qaylo dheer dirto si dayaarada loo keeni lahaa kabacdina dadka xoolihii iyo ka dhinteen beerihii si loogu magdhabi lahaa masiibadaas waxaan leeyahay dadku wixii kari karaan ha loo ururiyo waxay ku maqaalaa dowladda iyo Jabuuti ayaa hadda soo dirtay macaawino dayaarada raashin daadinayaan waxaan leeyahay waad mahadsan yihiin dowladda Jabuuti iyo dadka reer Jabuutiba gurmadka ay sameeyeen waxaan rabnaa inaguna aynu wixii awoodeenna shacbiga reer Somaliland meel joogaba uu gurmadka bixiyaa oo la kacaa oo dadka loo dadaalaa khusuusan dadka xeebta degay iyo gobolka Awdal berber wixii laga bilaabo ilaa gobolka Awdal nasiibo weyn baa ku dhacday barasaabka hadda gaarso maraya Awdal wuxuu ii sheegay in magaalada wariye la socday ii sheegay in xoolaha aad moodid sida ayax ay dhimashadoodu yihiin beeri wada go-een dadkii qaawan yihiin waxba taagan iyo guryo ka baaba'een de waxaa ka masiibo qadar ilaahay baa ka dhacay in loo kulmadaan doonayna talabaad waxa weeye arrinta ceelaf weyn qoyskan walaalaha ay isdilay shaydaanku dhex maray waxaan u sheegaynaa dadka arrintaa khusayso waxaan u sheegaynaa in arrintaas la qaboojiyo waxaan lagu hadlayo dibadda laga soo hadlayo dadkan waasha ee dibadda jooga inaynu maqal dadkaas carruurooda dibadday joogaan iskuulay dhigtaan idinka idin barakicinayaan arrintaa waanu ka wada hadalnay dowladda iyo dadka reer Soomaaliya oo dhan wakii madaxweynuhu iskuulkaa yeedhay phase 1 iyo phase 2 baan u kala sameynay phase 1 waxa weeye in xabadooda la joojiyaa arrintan waa arrin dowladdii hore tama ku ceebaysan yihiin si aan uga daba tagno ceebtaa dhacday iyo qaladkaa dhacay ee dowladda iyo tii horeba oo aynu u gaalno xal waara marka xabadda joojisaan ayaynu dadkii geli lahaa ee reer Somaliland oo xul ah oo raggii hore ugu fashilmay aanay ku jirin ayaynu soocinaa oo ka mid yahay dadka aan sooci doono cali gareer khaliif ka mid yahay uu ka mid yahay cabdiraxmaan oo cali ka mid yahay uu ka mid yahay diyaar xasan ciise jaamac oo aanu ka mid ahay iyo ciddii kale ku korsanno ayaa arrintaa gelisa cid kale oo gelisa ma jirto dadkii ku fashilmay dibadaan dhigana waxaan aad iyo aad u mahadnaqaynaa dadkii ilaa hadda nagu simay dadkii tegey waxaan sheegnay foolxumada ka dhacday ee dadka la xasuuqay ee 5 nin ay ka dhacay balaabadu ka dhacday inaanay hadda la dagaalamo 5 soo noolaanin in kala dhiman doonto marka waan aqlasho inta nool waa in loo taliyaa arrintaasi waxaan jecelahay in cidda dembiga leh reer Soomaaliya dembi ku qaada horena waxa loo dayacay madaxweynaha waxaa leenahay labadii qodob ee odayaasha kula yimaadeen ee annaga goobjoog ku ahaa eed qaadatay ee tii hirgelinaya labadii fuli baan la haystaa madaxweynaha odayaasha kula yimaadeen labadaa qodob si ay u dhisanto kalsoonidii dowladdu oo dowladda la arko inay arrintan ka tahay serious waa in labada qodob u fiirsan taasaan marinaya waxay noo hadhay arrin tukaraq arrinteeda weji kale loo yeelayaa cabdiweli iyo farmaajo waxay ciyaarayaan kaar qabiil bay ciyaarayaan tolaa ayaa reer hebelay maraykan baa looga yeelay raggii magaalada siyaad bare dowladdiisa ku jiray magaalada Soomaali baabiiyey saraakiish ahaa ayaa dibadda looga yeelay waa la isku habar wacday laakiin waxaan sheegaynaa إلى أن أرنتنا خبر هنا وحويه
وصوماليا يا صوماليا حدود اسكو هايسا dadka reer Soomaaliland ee soolka degaa soosha koonfureed degaa ala khaliif ka mid yahay dhulkooda way ilaashanayaan anagu waxaanu ku soconaa sharcigii adduunka xuduudihii dalka ayaan ku soconaa qabiil kuma socono hadda bahasha wajigeeda bedeshaan waxay idin sheegay digay inaan arrintu ku joogeen togaraq ilaa xamar isqabsan doonto arrintu marka in Soomaali lagu celiyo dagaalkii saashaneedii in lagu celiyo oo mar dambe ummaddu isqabsato reer la isku diro anu taa ku talin maayo anu nabad baan ugu baaqinaa dadka aanu jaarka nahay ee magaranaysa labada gobol ee magaranaysa muxuu bari iyo nugaal anu wax reer dawlad sameysay adduunka laguma arag oo yiri dawlad baan ahay jilib ciidagalo dawlad sameysto oo Soomaaliya dhul ku haysata oo le ciidagala awaaran ku qabsanaya adduunka laguma arag waa taas oo kale ciidagaya ma jirto waa isleegiin bog marka adeer anagu awaaran degnaa ma lahayn Ethiopia dhulka ciidagala qabsanayna aan isku keenina ciidagalo dhantago wax aqli gala ma yaana idin waalin xuduudan laba bedeliyo dadkaan intay wax dambe inaga raacaan maaha xaqna waxaan nagu leenahay xuduudida tagno xuduudna waxaan ku teginaa ogolaashaha dadka degan ee ummadda degan ee reer sool baan ku degan reer tukarqa baan ku deganaa marka waxaan leeyahay aqligu ha shaqeeyo laabkac ayaanu shaqaynin baaq baan u diraynaa isimada dhulkaas reer garoowe reer boosaaso waxaan leenahay aqli ka qabta siyaasiyiintan waxaan aqli gelin ku shaqaynaysaa waxaan u sheegaynaa dadka propagandaha Soomaaliya ku wada ee waliba Soomaaliya ka dhashay saara cali dheeraay ka leh si xawaayaanka naas inaan halka gubisaa leedahay hal gubo waa adu guban meesa kaale adu kaale ciilafin kaale adu togara kaale inta leedahay maatida kaca boqol soo diris dalkan ilaahay baa ilaashanay dadkiisa ilaashanaya dhibaatada laga daayaan dawladda waxaan leenahay waa inay ku kacdaan cadaalad ku kacdaan dadka xun ee hadlaya calaamadisaan hablaha soo hadlaya calaamadisaan inaanay dalka iman maadayn maxkamadda la saaro ee dabka horinaya intay ka soo hadaan gaariga isku soo tasawiraan ay tamiya ee dadka isku diray qabiil ku hadlaya ee Soomaaliland u fataxaytay inay burburiyaan ee shisheeyaha la soo saftay waa traitors meel qabtaa baan leenahay marka waxaan leenahay Soomaaliland isku tiirsanaana raxmadda Ilaahay inay subhanahu wa ta'ala inay shukriga badinaa ma inay dhiig aan ugu jawaabnay Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka waxaan leeyahay hala gurmado awdal haloo gurmado bulxaana loo gurmado dhulkeen loo gurmado dawladda waxaan leenahay baaq dawladeed sameeya ma leenahay madaxweynaha waxa laga rabaa inuu soo fadhiisto inuu dadka la hadlo inuu tacsiyadeeyo dadka dhintay dadka xoolo ka dhamaadeen siiyo oo halka state fiican ka soo bixiyaan madaxweynaha ka codsanayna aanu wareegto oo soo qorinay inuu hadlaa way hadla السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nimankan way fiican yihiin oo dawladnimay mataliyaan ma ogtahay inagu dawladdii ma haysanaayo oo wadi kara laana subxaana wa tacaala iyaguna iyago cid la fadhiya ay si dawladnimo u hadlayaan shidaalka dee shidaalkaasi kootarbaan ku soo geli jiray oo boosaasa bilaa cashuur baa lagu soo dayn jiray dee hadday naga joojiyaan Kenya baan iibsanay waa Kenya maanta la keenayo cunaqabateen dee hal joojiyay weliba Soomaaliya maxay noogu iman jiray inagu Ethiopia isku xidhanay marka qalad bay nageysay weliga muuska noogu jiray muuska marka Ethiopia noogu iman jiray xabad muuska oo horeysay Ethiopia ka helma ka yala xamar noogu iman jiray ismay noqon aga badnaanteena ay nageysay وتمانت الدولة المدني أنا أبي عشان بحيين أيكون مرميان وقالنا سايد ضد أنا شقة كلهن وعقل حمانتيني مية إني نغاني مين الدولة المدني نقال إني سيسوين ولا ما ينطورن ده مربوط هاي الله ينغفر فرس سبحانه وتعالى.